رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء. رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما ضولتها السماء. xeertii la oran jiray xerta ulamadow iyo xaaji nuure waxay caan ku ahaayeen barashada cilmiga diiniga ah waxayna wax ku baran jireen aagga tuulada buurcukoor oo ka tirsan degmada feerfeer oo gobolka shabeelle waxaana la sheegay in xertaasi ay ka baxday in ka badan 3,000 oo culimo ah oo ka aflaxday xerta ulamadow. magacaani xerta ulamadow waxa ay ku baxday wuxuu ahaa xerta ninkii qalin jabiyo oo jaamacadaasi waxbarashada dhameeyo baa waxaa la siin jiray sida hadda shahaadooyinka qofkii qalin jabiyo loo siiyo ul bakoora ul madow oo madax kuusan leh oo dabadana murjin uu kaga jiro oo madaxeeda uu kuusan yahay ishaasaa waxay u ahayd xerta yaa calaamad u ahayd. ishaasi qofkii lagu arko waxaa loo aqoonsan jiray inuu ka soo baxay dugsigii xaaji nuure xertii ulamadowna uu ka mid ahaa. magaca xerta waxaa bixiyey wiil asaga uu dhalay oo ilmihiisa u weynaayo maxamed sheekh maxamed xaaji nuure la yiraahdo yaa bixiyey magaca. wuxuu ku soo baxay masaajidka oo xerta ulaheeda macnaha masaajidka ulaha lama galo xerta masjidka hortiisa lagu tiiriyaa. xerta marka waxa way dadkaas waxa la sameyn jiray bomba la duban jiray xerta marka waxay sameyn jirtay bunka waxa la mari jiray ulaha la mari jiray. xertii markuu ku soo baxay masaajidkii yaa mataqaana maartii wuxuu arkay masjidkii oo ul madow marka sheekh markaas aad asagana sheekh cilmi badan oo markii dambe mataqaana maartii cilmiga aad uga soo qaaday buu ahaa oo asagana diinta islaamka aad fidiyay sheekh maxamed xaaji nuure. marka ulamadow ayuu xerta u bixiyay sheekh maxamed xaaji nuure. dad baa dhaho ulamadow iyo waxaas dhahan usha waxay ahayd ul saas oo xerta ay wada leedahay oo mataqaana maartii ay caan ku tahay waxaana laga markii mataqaana maartii waxa geed malay dab la yiraahdo jiinka wabiga ka baxo ayaa mataqaana maartii usha ul adag oo waxa waay mataqaana maartii madax leh oo mataqaana loogu talagalay markii dambe inay ninkii mataqaana maartii ka aflaxo uu qaado oo mataqaana xertii ulamadow ma ka imid uu yiraahdo ay caan ku ahayd. halka markuu sheekha uu marinayo xerta ulamadow sheekheedii xaaji nuure sheekh cumar sheekh axmed ayaa la oran jiray. dugsiga jaamacadda wuxuu ku aali jiray meesha la yiraahdo gal cusbo. xertaasi cadadkeeda dad ka yaraynayana way jiraan laakiin sida muhiimadda asalka ah xerta ka baxday dugsigaasi ka qalin jibisay ilaa 3,000 oo nin baa lagu tilmaamaa. dadka xertaasi ka mid ahaa intooda badan inkastoo Soomaaliya idil ay ku jirtay laakiin inteeda badan waxay ahayd dadkan Soomaali galbeed asalkooda u yahay. aniga kulli taariikhda aan hayo sheekha horta waxay la tahay waxbarashadiisana hagaasay ahayd meeshuu ku soo degayna Tanzania ahaydoo 20 madfaca ayaa loo riday markuu soo degay. waxaan taariikhda ku hayaa in 40 ruux qofka loo ridayo bahasha oo madfaca loo ridayo oo la aqoonsanayo 40 ruux yaa mas'alooyin su'aalayso. 40kaas marka way su'aaleen asagoo daymoonin uu jawaabtii u tuuray. marka dee fadhigiisana gal cusub ahaa
hadda meeshaan xaruntaan dagaal cusub meeshan Soomaalida waxa weeye kolkaas gaadiidna ma jirin isgaasiinna ma jirin ninka meeshan wax ka bartay markuu tago oo jigjigo kale inta tago oo meeshii waxbarashada uu ku bilaabo in badan baa soo dabamari jirto imaan jirtay halka uu sheekha joogo inta soo tilmaansadaan waa looga imaan jiray baardheer meel la yidhahdo oo koonfurtaas ku taallo markii xagga loo dhaafo xamar ka shisheys weliba halkaas waa looga imaan jiray sheekha marka wuxuu noqday jaamacadaha hadda la aadahayo ee loo kacahaya hadda kharash aan ku bixinayno oo halkan inta loo yimaado ruuxan sahay wadanin oon kharash wadanin iyo halkii intuu yimaado xerta intaa dhan dadka deegaanka ee meesha degan ayaa jeli jirtay jal waxaa la yidhahdaa macnaha ruuxa markii la kafaalo qaadayo oo la qabanayo qoyskiiba waxaa suurtagal ahaan jirtay inay 3 nin 4 nin ay ku aado oo 3 4 nin halkaas macnaha reerkaas la noolaadaan ma jirin magaalo iyo meel wax lagu cuno sokortan iyo waxaan cunaynay bariiskan iyo lama aqoonin xitaa dadka meesha jooga way ka carari jireen xilliyada Talyaanigu u yimid bariis iyo sokor intuu ugu daadiyeen guran diidi jireen oo dad kale intii xoolaha iska cuni jireen halka aan joogno waa degmada Feerfeer qabalaha Buurkur taariikhda aan ka hadlayno waxay saldhigeeda ahayd oo ku saleysnayd meesha la yiraahdo Galas waxay noo jirtaa meel 3 kiiloomitir 4 kiiloomitir waa qabalayaasha degmada Feerfeer ka mid waxa kale inta oo jirta meesha sheekha markuu yimid asalkiisu waxbarashadiisa hore waxay ahayd Xijaaz meeshaas wax ku soo bartay waxaan taariikhda ku haynaa intaasoo nin oo jaamacadda dhiganaysa inuu keligii madow ka ah waxaan taariikhda ku haynaa jaamacadda su'aalaha marka la weydiiyo ninka ugu horeeya ka jawaabay inuu xagga waxbarashada marka la weydiinayo ardayda intaas uu sheekha sheegay markuu jaamacadda soo dhameeyay halkaas koonfurtaas uu soo maray sidoo idin sheegay mas'alooyinkaas la weydiiyay halkaas uu soo maray halkan uu yimid halkan markuu yimid dadkii meeshan joogay oo waxbarashada aad ugu baahnaa ayaa la yiri ninkan aan dajino san ku celinaa halkan aan ku celino gal cusbaa sheekhi la dajiyay loogu guuriyay loo istaagay dad markaas meesha joogay waxbarashada aad ugu baahnaa ayaa meesha sheekhi macnaha saldhig u noqday meeshii intaas markay dhacdo sheekhi meeshaas u degay meel walba looga yimid marka loo yimid meeshaas hadda maxal xilligaas hadda aan sheegayno oo sheekha ka sheekaynayna aniga odaygii afraad awowgii afraad way xilligiis sino hulula la yiraahdaa sino hulula gabartiisu guursaday gabdhihii lagu dajiyay kamid ahayd halkaas buu xilligaas bad waa 4 fac yaan ka tirsanaya halkaas sheekha wuxuu ku beegnaa taariikh ahaan markii la yiraahdo 1780 kii qiyaasta meelahaas uu ku beegnaa wax in fadhi lagu soo koobi karo oo in taqana qoraal taqana lagu sameeyo ibxaad lagu sameeyo fara badan mooye Soomaalidan wax ma qortay wax lagu soo koobi karo ma ahan sheekhu xareyntiisii markii horeento oo meeshan uu quraan ku bartay dadku waxay aadi jireen halka iyo mataqaana maartay harar iyo mataqaana galbeed baa laga soo macnaha cilmiga laga soo baran jiray halkaas uu aaday aad uu halkaas mataqaana u joogay asagoo yar buu tagay meesha muddo joogay isgaarsiin arlada ma jirin sidaan taariikhda ku hayno isgaarsiin arlada ma jirin sida aan taariikhda ay nagu soo gaarsiisay ama qoraal quman ma jiray laakiin war dhagoodka meesha waxaa ka jiray dawlo bariga Afrika waxaa ka jiray 2 dawlo oo mataqaana markaas xilligaas islaami ah oo Saciid Barkhash uu xukumay marka dawladda islaamiga ay harar halkaas joogtay ayuu mataqaana maartay bictooyin baa loo soo diri jiray carabta looga soo diri jiray oo diinta fidinayso halkaas uu sheekha ka tagay oo cilmigiisa mataqaana si uu uga siyaasado bicto azhari ah oo Masar ka timid ayuu raacay halkaas uu Masar uu tagay markiisii hore cilmigana mataqaana maartay dadkii ugu horeeyay ee Azhar Soomaaliyeed ee Azhar wax ku soo barto ayuu kamid noqday hertana hadii waa sida idin sheegay adeedeeda way badnayd culimadu baana leeyahay jiray markii ugu horeysay in 60 nin oo horeysay horta yaa mar qalin jabisoo mar dhaqaaqday markii wax barteen dadkaas buuna ahaa dadkaas waxba ku dhex jiray dad hadda markii dadkaas warsato waa hertii culimadu aan kamid ahaa aabbahay baa kamid ahaa dhahay hadda wax nool ma jiree aabbahay ayaa ku jiray yaa aabbahay yaa ugu dhahay jiray marka adigu 60 kaas nin maalikay jabisay ay qaateen usha loo dhiibay hertii culimadu meeshaas horta baga laabatay bixidaada kadibna hadee way u socotay marka aniga taariikhda aan hayo taasa kamid ah sida taariikhda aan ku hayno waxaa jirtay in boqortooyada Barqash waxay ka jirtay Muqdisho waxay ka jirtay meesha la yiraahdo Zanzibar oo Tanzania hadda ku taalo hararna way ka jirtay bictadaas boqortooyadaas waxay mataqaana dalbatay dad culimo ah oo diinta fidiyo ay ka dalbatay
halka meesha marka waxaa laga xukumay islaamka waxaa laga xukumay xaramka laga xukumay sida taariikhda ay nagu soo gaartay dadkii la soo diray ayuu ku jiray dadka sheekha dadkii loo soo diray boqortooyada Zanzibar ayuu ku jiray ayuu soo galay marka sida aan ka yacnaha mataqaana maartay aan la socono kolba hal wada sheekh ka leentana uu la socday oo sheekh abal la yiraahdo xaaji xasan oo sheekh aban ninka la yiraahdo muqdisho caanka ka ahay awogiis ahaa oo waliba awogiis hooyo yacnaha dhalay labadaas oo ayaa Soomaali ka ahaa inta kaleento waxay ahaayeen dad kaleento meesha markii mataqaana adigu mataqaana maartay uu ka dagay Zanzibar markuu ka soo dagay jasiiradda Zanzibar markuu ka soo dagay waa la sheegay waxaa dhigay mufti baa timid arlada muftina macnihiisa wuxuu yahay waa ninka ugu cilmi sarreeya diinta islaamka mufti la yiraahdaa sheekha mas'uulkii muftidaas meesha tagtuu ka mid ahaa sheekha meesha waxaa lagu weydiiyey su'aalo fara badan inkastoo 40 su'aal lagu soo koobayo 40 su'aalood markuu ka jawaabay sheekha 12 madfac ayaa loo soo riday 12 madfac oo soo dhaweyntiisa lagu soo riday ayaa loo riday meesha waxaa ka dhacday xaflad aad lagu soo dhaweeyay sheekha taariikhdiisa iyo mataqaanaa xertiisii ulumadow xaji nuure cumar axmed mahdi waayba mahdiga dhan magaaladan degan laba ka tirsadaa markuu sidaa yahay sheekha asagoo yarbu halkan cilmiga ka raadsaday sidii la aqoon jiray markii kitaabka quraanka iyo kitaabka faclalaha sarfigana la yiraahdo ama laamitul afalka la yiraahdo ayaa la xifdin jiray macnaha dhalinyarada markay dugsi quraan ka baxaan ka markuu bartay iyo kutubihii kale yar ka ahaa safiinaha iyo cilmiga kale ayuu xagga galbeed u xereeyay sidoo sheekh maxamed sheegayay uu sii safray oo mataqaanaa ilaa ay harar buu tagay harar uu sii dhaafay ilaa ay mataqaanaa wuxuu tagay magaalada qaahiriya halka jaamacatul azhar wax ka bartay kadib wuxuu u dhaadhacay magaalada la yiraahdo makal mukarrama magaalada barakaysan ayuu tagay waxa halka marka ay saaxiibo ku ahayeen ay qaahiran isku barteen iskana raaceen haddana sidaan maqlay buugtii kitaabihiisa ma arkin laga qoray wax ka qoray laftiisa sheekh masaari ahaayo kitaabihiisa halkan lagu akhristay Soomaalidu aad u taqaano oo baajuuri la yiraahdo sheekh ibraahim baajuuri sheekh la dhihi jiray way saaxiibkiisa koobaad buu ahaa qaahiray wax ku wada barteen haddana masar bay wada xaramkay wada tageen xijaaj bay joogi jireen sheekhu halka joogo markaan muddo 20 sano ee wadanka ka maqan isku darkiisa 20 sano markaa meesha ka maqan yahay ayaa waxa uu tagay meesha dawladdii Cumaan Suldaan Barqash ninka la yiraahdo Suldaan Qaabuskan hadda joogo aabihii awgiisa ee Suldaan Saciid Barqash xeebaha bariga Afrika oo dhan ayuu xukumi jiray markaa uu haysto dawladdii Cumaaniyiinta ka talin jirtay dawladdaas ninkii haystay baa u tagay xaramka tagay markaas wuxuu yiri waxaad i siisaa rag qudaada aan ka dhigo macnaa qudaada rag u sareeyo bariga Afrika magaalooyinka aan ku dajiyo ilaa iyo mataqaanaa Cape Town iyo magaalooyinka mataqaanaa Dar es Salaam Mombasa muqdisho saasuu muxuu xeebta dhan waxa haystay dawladda Cumaaniyiinta markuu meesha tagay markaas Xijaaz waxa haysto sheekh maxamed saalax sheekh la dhihi jiray ee dariiqada saalixiyada la yiraahdo hadda aad maqasheen ka soo farcantay macnaha sheekh maxamed saalaxaas ayaa wuxuu yiri marka rag badan baa tartan u galay sheekh koobaad guuleystay wuxuu noqday ninkan baan ku gartu yiri la yiraahdo xaji nuure cumar axmed la yiraahdo xaji nuure sidii baa macnaha markab loogu qaaday asaga iyo qudaad kale oo macnaha goboladan kale ee bariga Afrika la dejinayay macnaha marka halkaas la geeyay magaalada Zanzibar ayaa lagu dejiyay waad maqlayseen si odayaasha iga hor sheegayaan macnaha markii markabka iyo wadaha la yiri nin caalim ah saaran la yiri madaafiic baa loo riday su'aalo loo dhigay dad su'aal weydiiyay qof kasto su'aal ha weydiiyaa la yiri qof kasta su'aal weydiiyay asagoo macnaha si irtijaal la yiraahdo irtijaal waxa la dhahaa su'aasha isla markaadba qofka uu toos u tuura la yiraahdo dhulkiisii uu ku soo laabtay marka uu abxereynayay oo xirta aadayay wax 30 sano ay jarab u ahay oo mataqaana markuu ka tagay harar markuu ka tagay 30 sano jiray uu ka tagay mataqaana markuu soo laabtay 60 sano jiray 30 sano ayuu cilmi akhris uu ku maqnaa sheekh halka markii uu tacliinta ka bilaabay dadkii ugu horeeyay waxay ahaayeen mataqaana adigu 60 ruux meelahaas baa lagu qiyaasay Soomaalida dadkeeda dhan way ka koobnaayeen laakiin xirta markii dambe waxay gaartay ilaa 370 bay gaartay dad waxay ahaayeen markii waxbarashadaas Ilaahay u baryaan si toos looga aqbalo sida sheegayaan sida taariikhda hadda aan ku hayno waxa weeye 60 dafcadii ugu horeysay xaajiga xirtiisii u dhamaatay markii sanad iyo laba joogeen 60 nin baa macnaha la diray oo odaya waxa riya oo ninba meel ka yimid laga yaabo inay macnaha dhowr isla socdaan meel ka wada yimideen 60 kaan way dhaqaaqeen nin walba meesha uu tago kutuba ka bilaabay xaajiga nin sidaas u ahaa xaji nuur la yiraahdaa ma la idin sheegay taariikhdiisa nuure cumar axmed mahdi way gurigan hadda qariidan meesha aan deganaa waa mahdigaas
intaasuu ka tirsanaya waxay ka kala yimideen banaadir way ka yimideen koonfur way ka yimideen oo mataqaana shacab raasiilagaas koonfurtaas ka yimid wuxuu ka bari ka yimideen waqooyi galbeed ka yimideen laakiin dadka badana waxay ka yimideen galbeed qabdahre goday mataqaana marta wardheer jijiga harar xataa waa laga yimid dad badan baa harar iyo maxay leh harar cilmiga naxwaha ayaa laga doon jiray laakiin cilmiga mataqaana marta aadka ninka uu waxay Sheekh Abdulrahmaan Afguriye ninka la yiraahdo reer dhagax buur waay Abdulrahmaan Afguriye Sheekh Abdulrahmaan Afguriye waxa loogu bixiyay meeshan markuu wax ka bartay ayuu tagay galbeed markuu tago afarta sanfe bilaabay afarta sanfe yaana mataqaana afarta madhabood iyo kutubaha dhan uu bilaabay markii la dhageystay yu sheekh wuxuu ku yiri wareede galbeed waxa loo soo doonan jiray mataqaana maartay cilmiga naxwaha ninkan wuxuu yiri waaba afguriye yaana culimadii kale inta afkoodii guriye yaana Sheekh Abdulrahmaan Afguriye la yiraahdaa ina iyo sikal masaqan laakiin Sheekh Abdulrahmaan Afguriye la yiraahdaa marka waa mataqaana maartay halkaas baa la kala yimid sababta dadka ay u iimaanayeen waxa waaye telefoon ma jirin laakiin ninkii wax ka barto yaa tagi jiray meesha markuu goobtii uu ka yimid uu tago oo arinta cilmiga meesha la ka waramo dadka waalidka ilmahooda inay wax bartaan ay rabaan halkaas bay ka yacnaha isgaarsiinta halkaas ka timid iyo dadka farada baa inuu meesha yimaado markii dambe xasan iyo xuseeno xirtii nabigi xasan iyo xuseeno xirtii uu madoobe xaaji cali timacso billaahi qum bixaali taasan qaadi jiray markaan looda la jirin oo rogrogayna maarid xasan iyo xuseeno xabiibkii nabigiiyo xirtii uu madoobe billaahi qum bixaali xasan iyo xuseeno xirtii uu madoobe xaaji cali timacso nin la yiraahdo oo macnaha xirtii kamid ahaa dadkii aad wax u bartay ah yaa macnaha saas yaa loo qaadi jiray marka annaga sidaasan soo gaaray taariikhdiisana waa sidaas hadda macnaha ay dadka u sheegeen marka wax haddii hadda looga noqonaa oo kalena maba jiraan taariikhda annaga wixii aan soo gaaray oo macnaha hataa gabayo noocaas oo fara badan baan qaadi jiray oo macnaha xirta iyo wixiga lagu ammaanayo